isuduwaha wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee gobolka Salel Cabdiwahaab Cabdilaahi Xaddi oo kormeer u koolgar xaaladda waxbarasho ah ku marayay gobolka Salel ayaa waxa uu soo gaaray degmada Xariirada ee gobolka Salel intaasi kadibna waxa uu kormeeray dugsiyada hoose dhexe iyo sare ee ka jira degmadaasi Xariirad waxaana uu indheeyay habka ay uga socoto imtixaanka amaadiga ah ee ka socda guud ahaanba gobolka iyo Somaliland si kastaba ahaatee isuduwaha ayaa ugu dambeyntii waxa uu la kulmay dhamaanba madaxda iyo maamulayaasha dugsiyada waxaana ay shir albaabadu u xidhan yihiin ay wada qaateen maamulaha dugsiga hoose dhexe ee degmada Xariirad iyagoo isaga xog waramay habsami u socodka hawlaha waxbarasho iyo imtixaanka waqtigan xaadirka ay ku guda jiraan iyo sida uga bilowday degmadu waxaana ugu horeynba warbixin ka siiyay maamulaha dugsiga hoose dhexe ee degmada Xariirad Faysal Xaashir Rayaale habsami u socodka hawlaha waxbarasho ee degmada Xariirad iyo dugsiga hoose dhexe waxaana kamid ah hadaladooda maanta oo ay taariikhdu tahay 10 May 2016 waxa ila jooga wafdi ballaaran oo waxbarashada oo ugu horeeyo iskuduwaha wasaaradda waxbarashada ee gobolka Salel Cabdiwahaab Cabdilaahi Xaddi iyo madaxa xafiiska qorsheynta ee gobolka Salel Mr. Ismaan oo u yimid inay hubiyaan oo ay kormeeraan qaabka iyo habka uu socdo imtixaanaadkii naqliga ahaa ee dugsiyada hoose dhexe koowaad ilaa 7 runtii waa markii ugu horeysay uu iskuduwe isagoo imtixaan kormeeray oo masaafada dheer soo maro aad baan uga mahadcelinayaa gudoomiyaha waxaan ku tirtirsiinayaa inuu sanadada dambe soo socdo insha Allah uu iyagana sidaa iyo si la mid ah imtixaanka waa in wax la hubiyaa waxay meesha ka saartaa dadku way isdhigaan markaan la hubinayn annagu ka maamulaan inaan ka hadlo haddaan la noo yimaadayno waa qalbi cidla soo maray waxa laga yaabaa inaad iska seexano dadkimada dheerayso laakiin markaad qofku uu foojignaanaya markasta marka uu filayo in xitaa isagoona ogeyn laga soo kordhacay أول هدي أي واحد برشلو هوس تالي ما أنت اسكتوها العصب وحنا كنت شدينه كرقة أنا ما كربان ولا قاعدين شتي خراك يجا إن شاء الله قبل كسر والله ضوي تحتمية يمكن حنا شهادية صوصلة قبل كسر ما واحد رنا وكنت دارينا إن شاء الله أنا نقولنا هو ورية أنا ولا دوسي كحرب ضحام كانت هي اللي بتقول إن شاء الله حنا إنه هذا كي وتشوفي كثير قانون oo ay gaarsiiyeen meel hore waxaan u baahanahay iskuulo badan oo soo bararto runtii aad uga qurux badan yahay ka tiro badan yahay dhinaca quality-ga hasta waynu hubsan doonaa taa weliba muddo gaab baan joogaa laba bilood marka iskuulada soo maray waxa kamid ah Galbeedka oo iskuulka labaad ee ah soo raaci doona Xariirad muddo aan leeyahay iskuuleeriina oo quality leh oo ay ubadku aad u yihiin oo soo maray waxaan jecelahay insha Allah inaan horta dadaalkeena halka ka sii qaadno oo aynu gaarsiino meesha ugu sarreysa cid kasta oo aynu u maraynana kama joogsan loo ilaa dugsiga sare ilaa dugsiga dhexe waxbarashadu waa basic waxaan rumaynaynaa fasaxinka bal at least iskuul u baahan in waxbarashadu kor loo soo qaado ma ka baro hadhow si ay u noqonin marka dugsiga sare gaaraan baa waxbarashadu aad baan ku salaamayaa Faysal ilaa badan ku bixisay insha Allah arintii dhinaca aad u bulshada insha Allah socdaalka isuduwaha wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee gobolka Salel Cabdiwahaab Cabdilaahi Xaddi ayaa waxa ku helinayay madaxa qorsheynta waxbarashada gobolka Salel Mr. Ismaan waxaana dhamaantood soo kormeereen dugsiyada hoose dhexe iyo sare ee ka jira gobolka Salel iyagoo u kuurgalayay habsami u socodka hawlaha imtixaanka ee waqtigan xaadirka ka bilowday gobolka Salel si kastaba ahaatee maaha markii ugu horeeyay isuduwaha wasaaradda waxbarashada ee gobolka Salel Cabdiwahaab Cabdilaahi Xaddi uu kormeer ku yimaado dugsiyada hoose dhexe iyo sare ee ka jira gobolka Salel